qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa u hambaliyay sanad guurada 17aad ee ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland. qaar kamid ah waxgaradka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay u hambalyeynayaan dawladda iyo shacabka Puntland iyagoo tilmaamay in laga daydo shacabka iyo dawladda Puntland horumarka ay gaareen. Bismillahir Rahmanir Rahim. Anigoo ah waxgaradka jooga magaalada Muqdisho dhalinyarada waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa dawladda Puntland oo sanad guuradii ay ku beegan tahay 17 guurada. waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa. waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa shacabweynaha Puntland sanad guuradii 17aad ee ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland. waxaan leeyahay hambalyo shacabka. waxaan ku faraxsanahay inaan la kulmo TV Puntland TV waxaan doonayaa inaan ugu hambalyeeyo dhammaan shacabka reer Puntland markasta ay joogaan dal iyo dibad. waxaan leeyahay sanad guuro wanaagsan. si kastaba haatee dadka reer Muqdisho ayaa soo dhaweeyay sanad guurada ka soo wareegtay aasaaskii dawladda Puntland. Yaasiin Faytine, warbaahinta dawladda Puntland, magaalada Muqdisho.